gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo weeliyo xogayaha gobolka iyo agaasimaha dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa kulan la qaatay gudiyada iskaashatada basaska iyo mas'uuliyiin ka socda dugsiyada gaarka loo leeyahay kulankaasi oo ujeedadiisu ay ahayd in heshiis isfaham laga gaadho kharashaadka gaadiidleyda ee maalmaha fasaxyada dugsiyada iyo sidoo kale in la sameeyo nidaam wada shaqeyneed oo rasmi ah oo ay ku wada shaqeeyaan labada dhinac gudoomiyaha gudiga iskaashatada basaska Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf iyo xubno kamid ah gudiyada kala duwan ee basaska caasimadda Hargeysa ee u adeega dugsiyada gaarka ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskaasi. Waxaan aad u salaamayaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex, xogayaha gobolka, agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay oo arrintan la soo dhaxgalay anagii iskuulada aad wax weyn uga qabtay waliba gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyadoo ay dhici lahayd in shaqadaba aanu ku dhawaaqnayno shaqada joojino imikana lagu dhameeyay arrimihii safgarad iyo inuu ma garanaysaa qodobo la soo saaray waana ku qanacsanahay anigoo ku hadlaya magaca guud ee ururka basaska caasimadda Hargeysa ama ha yaraado ama ha weynaado waana ku qanacsanahay sida qodobada uu soo saaray gudoomiyuhu gobolka waanu aqbalnay waana ku shaqeynaynaa waana qaadanaynaa cidii ka hor timaadana sharciga ayaa la marinayaa dhammaan basaska waxa uu sheegaya qodobada la soo saaray inay dhaqan kaliyaan kula dhaqmaan iskuuladana saasa ayaanu iyagana ka filaynaa. Halkan waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka, agaasimaha waxbarashada gaarka iyo xogayaha. Waxaan halkan heshiiskan laanu gaadhnay haddaanu nahay iskaashatada basaska waxaanu halkan heshiiska aanu ku qaadanay sida uu gudoomiyuhu heshiiska uu nagu kala saaray waanaanu qaadanay hambaliyaan u diraya barsaabka gobolka xogayaha barsaabka agaasimaha iskuulada gaarka loo leeyahay iskaashatooyinka city bus iyo mini bus dhammaan aad bay mahadsiin go'aanka aan maanta qaadanay ayuun baa soconaya wixii hore waxba kama jiraan iskuuladana waxaan leenahay maanta go'aanka ay saddex geesoodka ah aanu qaadanay maanta ayuun baad la soconaysan. xogayaha gobolka Maroodijeex Maxamed deeq cabdi muuse ayaa isna ka waramay qorshaha gobolku uu ku galay hawsha isfaham ee labadan dhinac khilaaf u dhaxeeyay gaadiidleyda basaslayaasha city bus iyo mini bus iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay khilaafkaasna wuxuu ahaa dadku mar haday wada shaqeeyaan khilaaf ma waayaan shaqada ayuuma keenta khilaafkaasna wuxuu ku soo dhamaaday xarunta maamulka gobolka Maroodijeex oo ay goobjoog u ahaayeen garwadeenna ka ahaa gudoomiyaha gobolka Maroodijeex mudane jaamac xaaji axmed cabdi muuse iyo agaasimaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada muuse iyo mas'uuliyiinta dugsiyada gaarka loo dalada gaarka ah ee alfajri iyo labada mas'uul ee basaska caasimadda city bus iyo mini bus agaasimaha dugsiyada gaarka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Muuse Maxamed Shida ayaa isna waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la dhowro heshiisyada si la wada gaadho isla markaasina wixii caqabada lagu la soo noqdo barsaabka gobolka khilaaf u dhaca meel shaqo ka socoto mana la isku khilaafa haddaan shaqo socon khilaaf ma yimaado khilaafkana waa la dhameeyaa de rag meeshu galo wuxuun bay ka keenaa arrinta ilaahay jisaayiisa khayr ka dhigo qolada ururka basleeguna niman odayaala oo markii aanu arrintii rogrognay inuu dhan walba iska taagnay haday tahay waxbarashada gaarka iyo haday tahay iskaashatada basleedaaba waxaanu ku soo gabagabaynay jawi isfahan leh oo wada shaqeyn leh oo qodobo la isku xukumo oo la isku kontroolana laga dhigtay wixii qoraal ay yimaadana in la fuliyo lagu shaqeeyo annaguna waxaanu ka nahay goobjoog iyo marag waxaanu doonaynaa labada dhanaba inay fuliyaan intan basleedana ubadkoodii baa dhigata intan dugsiyada leena ubadkii bay hayaan marka ayni isfaham waagi waa la dhameeyay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa sida qiimaha leh ee labada dhanba fahan iyo nabadgelyo ay ku dhamaatay waana mas'uuliyad weyn shanta qodob oo la fuliyo basleedana waxaan ugu mahadnaqaynaa maadaama ay noqdeen niman urura oo mustambeeda oo halkaan anagu marjac uga noqon lahayn ayaanu kala xiriiri lahayn laga bilaabay imikana wada shaqeyn baa labada xafiis ka dhaxayn doonta. gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Axmed Cabdi ayaa akhriyay qodobada heshiis ee labada dhinac ay isla gaadheen ee gobolku ku dhaxdhaxaadiyay waxaanu sheegay in cidii fulin weyda qodobadaasi laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan qodobada aanu ku dhaxdhaxaadinay
ururka basaslayaasha city bus iyo mini bus iyo iskuulada gaarka loo leeyahay qodobkiisa koowaad wuxuu dhigayaa gaadiidka dugsiyada gaarka loo leeyahay u shaqeeya heshiiskoodu wuxuu dhex marayaa mulkiilayaasha gaadiidka iskaashatada basaslayaasha iyo dugsiga uu shaqeynayo dhammaan fasaxyada qaranka ee kuwa rabadaanada iyo haddii ay yimaadaan fasaxyo aan ku talagalahayni wax laga jari maayo gaadiidleyda basaska waxa kaloo ay ballan qaadeen in wax kastoo amniga iyo horumarka qaranka hor imanaya ay iyagu mas'uul ka yihiin labada fasax ee sanad dugsiyeedka fasaxa yar 15 cisho ee basasku ay shaqeynayaan way leeyihiin lacagta iyo ka weynba 15 cisho ay shaqeynayaan way leeyihiin lacagta 15 aan cisho aan shaqeynayna ma laha wax lacag sidaas aanu heshiiskaas ku dhaqan galayaa